الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. walaalayaal, khudbadeennu waxay ku saabsanayd ilaalinta caqliga. waynu ka soo hadalnay nafta ilaalinteedii iyo cirdiga ama sharafta ilaalinteedii. imikana waa caqliga ilaalintiisii, hadday tahay caqligaaga iyo caqliga ummadda islaamkaba. saddex arrimood baynu midba wax yar ka taaban doonaa. arrinta u horeysaa waxa weeyaan makaanatu lcaqli fi lislaam, darajada caqliga iyo garaadku uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa iyo miisaanku islaamku u yeelay iyo siduu u qiimeeyo wanaagsan. arrinta labaad waxa weeyaan mufsidaatun lilcaql, caqliga waxyaabaha khatarta geliya ee u baahan inaynu ka ilaalino islaamku ina faray. iyo arrinta saddexaad oo ah xuluulun fii ximaayati caqli lmuslim, caqliga muslimka waxyaabihii lagu ilaalin lahaa xalkeeda. inta aynu ka gaadhnaynu insha allahu tacaala ku dadaali inaynu kusoo koobno. marka u horeysa, diinteenna islaamku darajo weyn bay siisay caqliga. wuxuu noqday caqligii huwa manaatu takliif. qofka marka xil la saarayo waaba halka loo eega ugu horeeyaba. shuruudda qofka lagula xisaabtamaya xilkuba ku fuulaya waa inuu caqli leeyo, garaad leeyahy, oo uu miyir qabo wax garanayo. siduu doono qofkaasi jidh ahaan ha uga xoog badnaada, laakiin haddii caqligii iyo garaadkii uu ka dhaawacan yahay xilba lama saaro, mana tashadee waa loo tariyaa, dembina ma yeesho. sidaa daraaddeed baa caqligii wuxuu noqday min acdami nicami watashriif. nicmooyinkuu ilaahayna siiyey insaanka uu ku sharfay waa kuwa ugu qiimaha badan. ilaahay baa isagoo inoogu manno sheeganaya wuxu uhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalafidata lacalakum tashkuruun. waxaad dhalateen idinka oo aan waxba maqlayn, oo aan waxba arkaynin, oo aan waxba garanaynin. intaba ilaahay baa idin dhammaystiray. qof arag leh oo maqal leh oo garaad leh buu idinka dhigay. ilaahay ma u mahadnaqdaan buu rabbi leeyay, nicmooyinkaasu idin siiyey. waad garan karaysaa qofka saaxibulcaqliga ah ee waayeelka ah, caqligiisa ummaddu ay ka faa'iidaysan jirtay, markuu gaboobo waa la weydaartaa, waa la iska dhaafaa. markuu waasho waa saas oo kale. marka liiska bahaayimka iyo xooluhu ku beeraa qofka garaadku ama caqligu wax ka noqdo. midda labaadu islaamku ku qiimeeyey waxa weeye ictabarahu إحدى الضروريات الخمس التي ينبغي المحافظة عليها. وشنت الرمادة ديمه هذا ميوي ما دان تذكرين يقول عليان لو وينو كسر هذا اللي تنوى تصدحات عقلك. سدا درادد أي إسلام كان وكدجي عقلك إن مالك قدر على واحد كتبه. إلهينا آدي بوق قدج آياتك. رسولكم صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحة بوشرح أرنتاس يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الرمي لها يدي ذا وحوقه الرئيسية خمرقة وحنقول لك كدرك أو إسكدا يسيا وليبانتان. هديك الله بلا عقل ذاتك يصبح حان يا عقل لاوي ليباني بما تجتمد الدنيا يمد الآخرة مدنا. أرنت الصدح هذا عقل الإسلام كوكيمة وحوي دعاه إلى اتباع البرهان ونبذ الجهل والتقليد. عقل يقول الدليل كالراعه أي شرع وفري أو سكيل عليه وحي دليل كدركسن. سدوح الله إلى هذا ضب الصعد كإن لها لا خرافات كوقفك وراعه دتك هدية جهل كسي فيسنا وقفك الضبقله
markaasaa ilaahay wuxuu eedeeyey nimankii carbeede odhan jiray uun gaalnimada waxani waa dhaqankii aabbayaashayo innaa wajadnaa aabaa'ana aabbayaashayaanu ka soo gaadhno waa caado ma khilaafayno ilaahay markaa cuquush caqligoodu baraarujiyayoo waxa uu sheegay bal aabbayaashood inay dib u eegaan aqoon iyo arrin waxay hayaan awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun kuwa iyaga dhalay leeyin waanu raacayna haddaanay caqliyad haynin hanuunna haynin daliil caqliya iyo mid naqliya oo kitaab laga soo qaadaya midna ma jiro miyay iska raacayaan mee caqligooda isticmaalaan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala siyaabuhu caqliga islaamku u qiimeeyo waxaa ka mid ah wuxuu ugu yeedhay inaanu caqligeenna ku eegno oo aynu ku fahamno oo aynu kaga faa'iidaysanno aayadaha kowniga iyo kuwa qur'aaniga ah aayadaha caalamkan ka muuqanaya iyo kuwa inooga muuqanaya kitaab kariimka aynu ka akhriyay inaynu xafidsannaha maxaa lagu dhuganaya maxaa lagu dhuuxaya waa caqligaa lagu eegaya oo lagu fahmaya oo lagu fasiraya oo lagu macaansanaya ummaddana looga faa'iidaynaya markaasaa ilaahay aayaadka aad buu arrintaa inoogu faraya ku celcelinaya qul induruu maada fi samaawaati waalard bal samooyinka iyo dhulka eega waxa ku sugan ina fii khalqi الsamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaari laaayaati liuli lalbaab duruus iyo casharaa ugu sugan baa ilaahay u leeyahy caalamkana ku sugantihiin ciri iyo dhulba waa dadkii laakiin caqli leh marka caqligii oo loo isticmaalayo wixii ilaahay daliilo ah inaad ku aragto ayaa nasku ina barayaa qur-aanka marka la eego labada qayboodba aayadaha caalamkana akhri aayadaha kitaabkana akhri caqligaagana ku eeg siduu caqliga islaamku ugu dadaalay waxaa ka mid ah annahu daca annaasa ilaa tanmiyati alcuquuli bilistizdaad bilcilm inaynu cilmiga kororsanno si uu caqligu u kobco suwaana shayga keliya ilaahay uu nabigu yidhi rabbigaa waxaad baridaa inuu kuu kordhiyo waa cilmiga waqul rabbi zidnii cilman dadkuna shahaadanaya alla yaqaanka iyagoo wada fadli badan aqoon-yahanka cilmiga liina way caqligoodii cilmiga ku kabayna way sii sareeyaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat dadku darajooyin bay leeyihin laakiin aqoon-yahanka ayaa u sii sareeya baa ilahay ui oo caqligoodii cilmi baa wehelinaya lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qof kastoo muslima wuxuu faray inuu cilmiga barto xadiidkii saxiixa dalabu lmuslim dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim qof kastoo muslima inuu cilmiga barto samaawiga ee wax kaga ansaxayaan waa faral buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam caqliga siyaabuhu islaamku u darajeeyey waxaa ka mid a xaha alculamaa ana alislaama xaha alculamaa calaa icmaali alcuquuli bilijtihaad fi istinbaati alaxkaam weliba aqoon-yahanka diinta iyo culimada waxaa la faray inay iyaguna caqliga howlgeliyaan si ay u soo saaraan masalooyin badan oo ay ka soo saarayaan nusuusta ama daliilada iyadoo aynu ogsoonnahay diinteennuna in ay u taagan tahay lidar-i lmafaasid walijalbi lmasaalix wixii dheefahoo dhan dadka in loo keeno dhibaatadana laga reebo arrintaana waxaa loola noqdaa sharciga iyo caqliga maxaa dhibaato ah maxaase dheef ku jira miisaanka la saaraya laba dhibaato keebaa weyn labada dheef keebaa la raacaya danta caamka danta guud waxaasoo dhan isu miisaamidoodii caqliga iyo sharciga ay ku soconayaan marka hogaaminta iyo aqoon-yahanka muslimka waa waxyaabaa la doonaya inay cuquushooda ku hirgeliyaan lidaalik buu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam xaakimku markuu dadaalo qofka ummadda u xaqsooraya haddii markaa daliil aanu haynin oo uu dadaalo oo uu la helo sidii saxda ahayd laba ajri buu leeyahy laakiin hadduu la seego sidii saxda ahayd hal ajri buu leeyahy waayo isagoo ehel u ah buu dadaalay dadaalkiisaasaa ilaahay uu ku abaalmarinaya habagefe marka caqligii baa la howlgelinaya markaanad naqli hayn iyo daliil caqliga islaamku keligii waxa uu xusay inuu xoogaa nuqsaana yeelan karo sidaa daraaddeed la doonayo in cuquusha la isku kabo litatakaamala alcuquul si caqliyadu isu tagaan oo ay u weynaadaan oo wax waafiya ay u soo saaraan ay isu celceliyaan ilaahay wuxuu ina faray waxaa la yidhaha wadatashiga almushaawara wadatashiga waxaa la yidhaahdaa waa kobcinta cuquusha iyo caqliyo badan inay isu yimaadaan oo sawaabka iyo saxda lagu dhowaado
markaasuu ilaahay ku amaanay dadka muuminiinta wa amruhum shura baynahum arrimahooda way wada tashadaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isaga oo waxyiguba uu ku soo degay haddana wixii aan waxyi ahayn ee arrimaha adduunyada iyo wixii qiyaas u baahan raggu kala tashan tiray dumarku xataa kala tashanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wasaynu ogsoonahay mararka qaarkood arrin ay xaawalaydiisa iyo xaasaskiisu u keeneen buu qaatay oo ummadiina xalba u noqday sida saxaabiyadii ummu salama oo kale arrintaasina waxa ay tahay mid ay dadka muslimiintii ku soconayaan ilaahayna waa faray washaawirhum fi lamr ummadda la tashabaalay lidalik baa casrigan aynu joogno culimada islaamku marka ay xalinayaan masalooyinka cusub ee casrigan kusoo kordhay fiqiga iyo axkaamta qof kaliya ma ijtihaad jamaaci la yiraahdo wax ayaa la soo saaraa wax la yiraahdo majaamic baa jira kulamo culimadu ay isu wada yimaadaan oo aqliga iyo cilmiga la isla kaashado masaa'ilkii cusba jawaab laga bixiyo markaynu aragnay toddobada arrimood waaweyn ee islaamku ku qiimeeyay aqliga iyo darajada uu yeelay waxaynu u baari lahayn mufsidaatul aql aqliga si aynu u ilaashano maxay naga fasaadin karaa shan arrimood baynu arkaynaa inay yihiin kuwa aad u muuqanaya oo sharciga iyo waaqicaba ka muuqanaya aqliga markuu islaamku inoo ilaalinayo waxa uu ina faray inaynu ka ilaalino wixii waalaya waxyaabaha waalaya waxaa ka mid a caqliga shayga loo yaqaano mukhadiraadka ama maandooriyaha ama mid qoyan ha ahaado ama mid qalalan labadaba mid la cabayo mid la ursanayo mid meel kale la gelinayo noocu doonaya ha ahaado nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa muslim ku sugnaa ibnu cumar uu warinayay nabiga ka soo maqlay wuxuu ku yidhi kullu muskirin khamr wa kullu muskirin xaraam wax kastoo caqliga dooriyaa waa khamri uun wax kastoo caqliga dooriyaana waa xaraam halkaasaa waxaa soo gelaya daroogadii iyo waxyaabihii kale maandooriyaha shaygaasi hadduu maan kaba dooriyo tubaako ha ahaado qaad ha ahaado sigaar ha ahaado daroogada noocyadeedii kala duwaneyd khamrigii qaacidadaasuba la siinayaa marka baaritaan cilmiya lagu sameeyo waaqicana lagu eego maanka dadka wax ma u dhimaa walow yaanay badnaaninba dadka qaarkood haddii laga helo cilladaas waxa uu noqonayaa shaygaasi jariimad iyo dembi iyo wax xaraama taana wuxuu islaamku ka duulayaa caqliga sidii loo ilaalin lahaa waxa labaad oo arrintaasi runtii waanay soo badanaysaa oo dadka qaarkood diintaa celisa dadka qaarkoodna awoodda xukun baa celiya markay dadku waayaan cid wax ka qabata caqligoodiina xukumi waayo waxaan horuunbuu u socdaa kadibna ummadaha marka had iyo jeer la qabsanayo dalalkooda iyo dunyadooda siyaabaha caqligooda loogu duulay ka mid tahay in maandooriyaha lagu sii daayo ood garanaysa China nimankii reer galbeedku marka ay weerarayeen waxa la yiraahdo mukhadiraadka lagu isticmaalay waxa kamid ah caqliga waxyaabaha inaga fasahaadinaya u baahan inaynu ka ilaashano al khuraafaat sixirka iyo shacwadada iyo waxa la aaminayo ama dadku isticmaalayaan dadka maankooda lagu dooriyo iyo jibanka lagu isticmaalayo sixirkaasina marka uu ummad soo dhex galo waxay sheegaysaa dadkaasi inay diinta ka durkeen isticmaalayaan reer banu israa'iil buu ilaahay ka warramay markay diintii dabada ka tuureen maxay ku bedesheen wattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixirkay dadka barayayaan sixirkaasoo la qaataa wuxuu sheegayaa diin la-aan ka adeegsanaya iyo ka u tegaya iyo ka caadaysanaya ka macaashaya intaba casriganna wuu badan yahay ama ogaada ama ha ogaadin oo waxa qoysas badan kala eraya waa sixirka shuraako badan waxa kala eraya jaarka waxa isku diraya xigtada waxa isku diraya dad badan oo sixir la yaala ayaaba awliye loo haystaa la adeegsanaya dadka qaarkood Itaaliya arrin ka dayeen oo lagu warwareegaya adduun badan inaga baxaa waa caqligeeni oo dhoofayo ina dhaafayo inuu ku iibsanayna adduun dadka khuraafaadlayaasha ahi way soo badanayaan waana dariiqo ay u shaqo tagaan waana wax u baahan kol haddii alla ka cabsi uu ka tegay iimaan beeleen qofkaas uu gaaloobayaa tallaabay u baahan in laga qaado oo xukun lagu faliyo intoo la daba galo
awoodda lagu isticmaalayo argagixisada qolyaha la sheego waa in lagu isticmaalaa kuwaas argagixisada dhabta ah ee caqliga ku duulaya ilaahay baa ka warramay subxaanahu wa tacaala had iyo jeer marka arrimahaas oo kale ay dadku isticmaalayaan in liibaani ka dheerta liibaan adduunye iyo mid aakhiraba innamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu asaaxiru xaysu ataa meel kastuu isa soo taago ma liibaana buu ilahay yidhi sixir leh isaga iyo dadka u tagaatoona ilaahay baaba laga gaaloobaya subxaana wa tacaala qofka haddii loo sheego oo looga digo oo uu isticmaalo ama u tago diinta wuu kaga baxayaa waxaad akhridaa cilmulcaqiida waxa uu jawaabta uu ka bixinayo qofka uu ku caddaadana dil buu mutaysanayaa qofkuna hadduu gaaloobo dee hadduu nin yahay hadduu xaas yahayba xaaskii waa labadii qof way kala furmayaan kol hadduu gaalnimo u baxo waxyaabaha caqliga khatarta ku ah waxaa ka mid a shayga loo yaqaano ghaswu lfikr duulimaadka maskaxda ama sariqatu lcuquul dadkoo caqliga laga xoda hadday madax yihiin iyo haddii ay yihiin raciyad iyo hadday yihiin dhalinyaro ummadda oo isa saluuga uun waa qofkoo isagu iswaaya ama isqawada oo kalsoonidiisa cid kala siiya naftiisa kuma kalsoona diintiisa dalkiisa dadkiisa meel kale uu aftaagayaa oo meel kale uu eegayaa oo arrin uu bidayaa weliba shisheeye waa nasiib darro aada iyo aada u weyn waa cadamu thiqati binnafs qofkoo naftiisa ama ummadoo naftooda ku kalsoonaan weyda wey taasina waa midhka ay aada ugu dadaalaan shisheeyaha iyo nimankii dadka gumaysan jiray markii dambena intay ka kaceen luku soo fidiyey nebigu wuu inooga digayaa calayhi salaatu wasalaam ka horna qur-aankaaba inooga digayo ilaahay wuxu uhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu weligood dagaal bay idinku wadayaan si ay diinta idinka saaraan waa hadday karaan buu ilahay ilaahayna wuu idinka ilaalinaya idinkuna iska ilaaliya walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum marnaba inay kaa raalli noqdaan ha eegin baa ilaahay yuhuudda iyo nasaaradu tanaasul badan kasta samee kaama raalli noqonaya ilaa diintooda raacdo nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga digaya wuxuu leeyahy latattabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin ilaa aakhiri alxadiid walee inay idin dabageli doontaan nimankaa yuhuudda iyo nasaarada taakaday qaadaan iyo meeshay galaan iyo raadkooda iyo godkay galaanba way idinka dabageli sidaa u daba ordaysaane ugu kalsoon tihiin waa taa aynu arkayne maanta wax walba xaggooda xaggii ilaahay la eegi lahaa iyagaa la eegaya daayarteennii waa kuwa caqligii laga xaray waxa aynu ogsoonnahay firqadaha had iyo jeer ku jira ama mass media ama barahan bulshada lagu wada xidhay aada u sii badanaya waxaa ka mid a fikirkooda baahinaya tansiirka waxa loo yaqaano dadkoo diinta kiristanka loogu yeedho iyadoo adduunyo la isticmaalayo iyadoo afkaar kala duwan la isticmaalayo xayeysiis waxaa ka mid a calmaaniyadda waxa la yidhaahdo in dadka laga dhaadhiciyo diinta iyo dowladnimada in la kala saaro waxaa ka mid a ibaaxiyada dadka odhanaya wax waliba waa mubaax xorriya aada loogu celceliyo dadku xaq bay u leeyihin inay xor noqdaan laakiin waa xuduudda sharciga waa inaan la dhaafin iyaga loo eegi maayo xuduudda sharciga waxaa ka mid a waxaa la yidhaha ilxaadka mulxidnimada way soo badanaysaa dad dhalinyaro soomaaliyeed oo weliba aqoon-yahan sheeganaya oo master iyo PhD sito oo ka baxay diinta islaamka jira oo ku doodaya ilxaadka maxaad ka taqaanaa waa ilaahay oo la yidhaha itusoo itaabsii waa tii shuuciyadda oo dhinac kale loo dhigo xagga galbeedka inaga timi qofkii aqoon buu isbidayaa caqli buu leeyahay waan ku doodayaa kadibna wuxuu leeyahay ilaahay buu haystaaba ilaahay muxuu sidan u yidhi miyaanu dadka ka gardarayn ilaahay ma dictator ba sawka kan yeelay sawka qur-aankiibuu durayaa marka ilxaadkaasina waa wax soo biiraya oo baraha bulshada dhalinyaradu ay ka runtii ka akhriyayaan oo si dhib yar loogu duufsan karo una baahan dadku inay aada ugu baraarugaan weliba dadka wax akhriyaan waxaa ka mid a caqliga siyaabaha loogu soo duulay firaqu daala firqada islaam sheeganaya laakiin waxa ay wadaan uu yahay wax aada u dhib badan khawaarijtii nimankii la odhan jiray shiicada qur-aaniyiintii waxa weeye qolo iyaguna le qur-aanku baynu daliishanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa halkaa inaga dhig xadiid daliishan mayno waayo nebiguna bashar buu ahaa inaguna bani aadam baynu nahay marka ilaahay unbaa inoo dhexee rasuullada inaga jooji marka daaqaday ka tuurayaan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo diinta barhkeeda qolyahaasina iyaguna way soo biirayaanoo way soo badanayaan mid waliba wuxuu u baahan yahay daraasad dheer iyo muxaadaraad iyo sharax badan iyo wadooyinkay maraan oo aada loo akhriyo looga fiirsado
waynu dul maraynaa waa si aynu uga digno waxa kamid ah waxyaabaha aqliga shanaad arinta shanaad ee duulimaadka ku ah fasaadinaysa waxa weeye alqalaq min alinhimaak fi dunya wa fi hubbiha jacaylka dadku adduunyada ay u qabaan ay suxul duubayaan ay u ordayaan oo dadka aad ugu bata oo qofku uu indhay iyo dhagaba ku beelo siduu bahasha ugu ordayo soon mee oo salaadi meeday oo quraan mee oo diini meeday oo mas'uuliyad caam wax soo dhan wilaawaya 24 saacadood afar kamida baa laga yaabaa inuu seexdo 20 kalena bahashaas u bartanka ugu jira marka iyaduna ku sii badato musiibo weyn bay leedahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan galay wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina ilaah waxaanu ka magan galay buu leeyahay hamiga iyaga oo dhan inuu adduunyo noqdo oo aan wax kale ilowno allahumma inni a'uudhu bika min al-hammi wal-huzn xadiidkii dheeraa bukhaari waxyaabo ilaahay ka magan galay nabi waxa kamid ahaa ilaahu hamigaan ka magan galay iyo murugada adduunyada uun ka soo gaaraysa marka taasina dadka qaarkood markay ku badato qofku ku celceliyo iyada uu isku culays farabadani ka fuulo maskaxdu way daciiftaa ama waashaa ama wuxuu qaadaa cuduradan gaaladu leyl dareeyna stressiga la yiraahdo u qaadan waaga maqaadiiraho dhan baan maraynin waxa waad khasaartay waxa saas uu noqday marka maalinba aqligiisa waxba u sii dhin meela uu dawaqo fududaado oo hebelkii la yaqaanayba aanu ahayn nooc kale uu soo baxo taasina musiibooyinka adduunyada haysta insaankuna marka diintiisu ay yaraato ee adduunyada uu hamigeedu aad ugu bato waxyaabo aqliga khafiifiya lumiye kamid tahay waaqicana waa laga arkaya sharciguna uu ka digay ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxa uu xusay awliyadiisa uu jecel yahay waxyaabaha ugu naxariisto ku ikraamay ama ku maamusay waxa kamid ah inuu ka dulqaaday hamiga iyo murugada ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عبسدا يمر جدا يد الله لها كدر قاضي أهل الجنون مركا أي جنة قلان وحيابها يكن استنا الدنيا ذا يكون قبين بحزن جاي يمر جداس يقولوا بكاسو كمديا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلهي بقى مهضل وحي نقررنا الدنيا ذا murugadeedii ciilkeedii iyo qulubkeedii ilaahay naga dul qaaday halka noogu raaxeeyba mahadle inoo dambi dhaafay marka waxyaabahaasi shanta arimoodna waxay ka mid yihiin caalamkan aynu arkayno iyo casrigan aynu joogno waxyaabaha khatarta ku haya aqliga dadka aqoonyahanka iyo dadka caadiga ah sida daraadeed waxaynu u baraarujinaynaa inaynu uga feejignaano waqtigoodna nagu soo ururay daraadeed waxaynu dib u dhigan doonaa insha Allah xuluulun fi himayati al-aql lil-muslim qofka muslimka ah ama aqliga muslimka ah sidii loo ilaalin lahaa xalka islaamku soo dhigay waqti dambe aynu ka dhigan insha Allah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinaba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة